warkii adduunka aan idin hayaa maanta war weyn baan idin hayaa arrimihii falaqaynta siyaasadda waa anigii dib ugu soo laabtay saa darteed xogtu bannaankay taalla hortiina soo dhigayaa bismillaahi raxmaani raxiim aan war bisinkii baan iloo bisinkaan u qabto waxaa bisinka loo qaban baraka male waxa weeye cadaadis dheer kadib madaxweyne xasan sheekh marka uu ka soo laabto safarkiisa maraykanka ayaa waxa uu socdaali doonaa magaalada Kismaayo halkaasoo kula kulmi doono madaxweynaha Jubbaland waxa weeye madaxweyne xasan sheekh nimankii imaaraadka ula hadlay Etoobiyaanka ula hadlay Kenyaanka ula hadlay waa sagi keenay nimanka Suudaanta ahayd markuu Suudaanta geeyay xamar nimankii imaaraadka yidhi nimankan maxaa u keentay wuxuu ku yidhi idinkuba nimanka waxaad wadataan aad igu soo dhisaysaan Puntland iyo Jubbaland maamul goboleedyadii ayaad garab siinaysaan oo naas nuujinaysaan waxay dhahay arrinta laga dhamaynaa Suudaanta nuu keen mar dambe madaxweynuhu inta uga maharine fag buu yidhi haddana daamkii waa say ka qayb galay oo Ethiopia waa say abi ku yidhi ore ani waa kaasahay daamkii waa taan kula farsameeyey nimankan jagiga dheh Kenya waa say u tagay farsamo geliyey axmedow waa tii iyo siciidan culayska adduunka la saaray waxa la yidhi madaxweynaha la heshiiyey markii hawsha ay soo dhamaatay سعيد عبد الله الدني يا أحمد أبا وضح الله هل ما يكون كلا أسلوب هذا المركب مدحوين أحمد أبا والرباع إن حلك لقى قاضو حمسة وماشوا وحسي قصار سعيد عبد الله الدني نفس بوار كابا إنه حمسة جوجو إن حمسة لا تابتو مرة بيو وحولي حمسة لا تابناي أدو على حاله قدام بين سيدي وراه السيغيان واحد يذكر راعين سعيد دني يا أحمد مدوبة إن دقالك حاسس شغل حوجيه لكن ما دام عداس عالمي وسارية هي أفكر اللي سمع إيوه ولا قد نقول إنه شيء متقال لقاري أحمد مدوبة مركة مدحوين حاسس الشيخ وحقوق أركا أحمد مدوبة نفس السياسات إنه مدحوينه دالك بحوه وأحمد أطاقه هالك الربي مدحوينها جبلان توبحوه إنه حسن أطاقه مدحوين حسن أطاقه مدحوينه فدرالك أطاقه marka Axmed wuxuu leeyahay Xasan oo yiri hala soo qabto Axmed waxaan tusayaa inuu aniga fadhiga igu yimaado markuu fadhiga igu yimaadana wuxuu dhigi doonaa haddii rabto inaan heshiino waa inaan xamso xilka ka qaada oo awood qayb samaysaa oo wasaaraha naga nasiisa halkaasoo maraya marka analyse-kaygu wuxuu yahay ama saadaashaydu Axmed Madoobe Siciid Dani iyo Xasan Mashiikraan maya لكن دناها اسكو قصبيه كينيا إثيوبيا إمارات اسكو قصبيه إني وضح الله لكن ماشينا إياه أحمد دوبي وحكاكو أن إنه مدحوين حسن غلطة قالوا وحكا لو الترفيه بان حكا إنسانية مدحوين حسن الشيخ وحكاكو أن مدحوين هيرشبيل إنه كان دكتور عبد الله محمد نور أوجي تاسا كاكو وحكى لقاطة arrimaha xasaasiga ah in maanta idin haytaawi marka waxa soo hartay qodob ku saabsaneed mucaaradka Garowe inay tagaan wali wax la isku raacsan ma taas Siciid Cabdullaahi Dani wuxuu aqbala ma ahayn qorshe meel la wadito ma ahayn laakiin waa arrin socoto weey marka warka madaxdiisa waxa weeye in madaxweyne Xasan Sheekh markuu ka soo laabto safarkiisa Mareykanka kadib oo u socdaal doono Jubbaland أحمد بن وديه دونه مدحوينه إن الصوبان إنها هي هلا صاحره أنا وإيمت أوكي قلب كلامته مهمة جراء برنامج كده بارو سهل دونه سجال لما تنك بشة مركو برلمان كفرمه ما حد يدونه مدحوين حس الشيخ مو الرباع إنه وقت يكرسه أنا وحيلة طامية وقت يكرسه الرباع لكن أنت فريست مدحوينه مرة هيو لما صاروا هل يكرني مدحوينه ديما أحمد أمريا سعيد دني أمريا وحوليها قولها الدجان كان متقع سماهنا وحوليها عاصمة دا الدورشين قولها الدجان كان عيان متقعنا الدولة قبل جدا أقول هذا إن متقعنا الدورشين قولها الدجان كان عن وحل بانو لقى صوت دورته
hawshiisuu wadayaa saasuu ku luga fidsanaya madaxweynuhu waqti ku raadsanayaa uu 2 sano ku sii joogo laakiin soo istaago madaxweynuhu dhimaayo 2 sano ku darsado ma dhahay madaxweynuhu xasan ma dhahay saas ma dhahay inta aan xog ogaa okay madaxweynaha daba stress uu qabo waxa weey 29 bisha markuu baarlamaanka furmo in xildhibaanadu bug dhihi doonaan oo dhihi doon ra'iisul wasaare xamsa xilka laga qaaday halka soo fahantay wadaha cali soo dhahaya warbixinadu maalin kasta ayaad xogihi caadiga ah ee siyaasadda aad iga helaysaan muddo dheer aamusnaa maadaama la yiri xilliga doorashada soo dhow waxaan ku qasbanaa markaan inaan hawl badan qabto waxaynu focus ka saari doonaa galmudug ma hasalaad muxuu ka damacsan nimankii u tagay reexad Saleemaan Sacadka ee Saabir Suuriya Abshir Buqaari iyo dadka uu la kulmay oo wiri galmudug waa ka tanaasulay ma run buu u sheegay ma hasalaad mise been buu u sheegay muxuu qabtay Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor muxuu ka qabtay galmudug muddadii uu joogay focuska ayaynu saaraynaa sidoo kalena miisaanka Liibaan Axmed Xasan Liibaan Shuluq ee musharaxnimadiisa madaxweynimada galmudug maxay dhan tahay culayska muxuu dhan yahay saameyn meequu leeyahay culayskiisa muxuu dhan yahay hay majority codka oo xasan sheekh ku tashanaya Liibaan imisa la socota wasiirka gaashaandhigga Axmed Cali Fiqiyo socda wasiirka madaxtooyada Abshir Buqaari la socda hogaamiyaha adag ee mataqaaliyaad Saabir Suuriya la socda hay ma had salaad warka uu leeyahay nimanka Saleemaanka anay ii tanaasuleen oo anay taageereen madaxayad oo ka fidinaya mise waa warrun miya mise daxayad oo ka fidinayo Saabir aan gurigiisa ugu tagay Abshir aan gurigiisa ugu tagay way ii tanaasuleen warka uu leeyahay ma warrunaha mise isaga been sheegay wuxuu ku yiri aniga waa tanaasulay ma laga yaabaa hawshu inay meel kale u socoto aniga taageersana sanadkan inuu madaxweynaha galmudug noqdo yaa taageersanayaan amaanayaan wax qabad muuqdo ku arka qaybaha daba barnaamijka ayaad ku maqli doontaan hase yeeshee markaynu u soo laabanna baraha bulshada waxaa sii badanay dhaqan xumadii xaaladuna way sii adkaanaysaa waxaa muuqata in caadi laga dhigayo qoomuluudnimadii oo dhalin Soomaaliyeed ee qoomuluudnimada caadi ka dhigayaan waxaa soo badanay dumarka jirkooda ka ganacsada ee baraha bulshada soo galo ee loo camiro iyadoo ay daawanayaan intaasi oo dhalinyaro Soomaaliyeed ay daawanayaan xaaladdu way sii adkaanaysaa TikTok waxa ka socdo mataqaana fasahaadtii ugu xumeyd baa ka socota dhaqan xumadii ugu xumeyd ayaa ka socoto waalidiin badanna ilmahooda telefoonay siiyaan oo internetka soo galaan waxyaabaha dhaca waxaa ka mid ah cunug yar oo hooyadii oo hawl iska haysato camera ku qabtay live inta taabtay mana oga ilmo yar weey telefoonkeedii buu ku duubay saantii qaawano meel sa u fadhida iyo ku soo duubay idina kama war hayso wariga leexa ilada waayahay arrimaha dhulka ayaa sidoo kale to wajihi doona maadaama muddo aan ka maqnaa dadka yaa dhibaataynaya ummadda Soomaaliyeed dadka wada ooynayaan ilaahayna waa noogu caroonaya hadii laga aamuso inta ka badan ummadda yaa dhibaatada ku haya madaxweyne xad sheeqa misbeen baa laga sheegaya madaxweyne warqad soo ma qorin oo muu dhihin dadka dhulka loo sharciyeeyo yaa soo dhex gala marka arrintaas ganacsato madaxweynaha ka soconaa been guur booto isbuu xaarin xogaa sargaalka booliska lacagsi hawsha ila qabta dadka cagaf la geliya ha xitaa hadda waxay maraysaa dadka dokumentiga Maxamed Siyaad Bare sharciga haystay in guriyooda lagu qabsado wadaar cali soo dhahayo dabaysha geedaha ma raxdo inay ciyaarsiiso ku xirro barnaamijka maalin kasta soo booqo waaga cusub TV gal barta aan ku leeyahay ilaahay kuma samadiiday Facebook TikTok soo fiiri YouTube-ka maalin kasta warbixin baad u imaanaysaa cadaaba arrimaha ogeyn oo hoose oo sira ayaan ku hayaa habiqlayso dabaysha geedaha ma raxdo inay ciyaarsiiso